sigan firin doona haddii aan ku bilowno kooxda kubadda cagta Bournemouth waxay doonaysaa inay weeraryahankeeda reer England ee Callum Wilson oo qiimo ahaan lagu qiimeeyay 75 milyan oo pound ay ka iibisay kooxda kubadda cagta Chelsea waa 25 jibar lacagihii ay 26 jirkan uga soo iibsadeen mid kamid ah kooxaha kubadda cagta ciyaaraya gudaha dalka Ingiriiska sanadii 2014 oo 75 milyan iyo lacag u dhow awalba lagama soo bixin laakiin hadda ay doonaysaa in kooxda Bournemouth wiilkan ay qiimo qaali ah ka dhalaaliso Chelsea ay siiso haddii ay lacagtaasi la bixi karto Wolves ayaa Chelsea kula dagaalami doonto saxiixa Wilson ka oo isagu 10 gool dhaliyay ilaa iminka kala ciyaareedkan waxaana warbixintaasi daabacaya Birmingham Mail majalada la yiraahdo sidoo kale Chelsea ayaa sidoo kale doonaysa inay dib ula saxiixato daafaca dhexe ee kooxda Bournemouth ninka la yiraahdo Nathan Ake 2 sano kadib markii uu 26 jirkan reer Holland kaga baxay qalcadda Stamford Bridge isagoo aaday kooxda kubadda cagta ee Bournemouth dhanka kale garoonka cusub ee kooxda Tottenham ayaa la warinayaa in la dhameystiri doono xilli ciyaareedkan Mail ayaana daabacday in garoonkaasi ay Tottenham dib ugu wareegi karto isla markaana ay noqon doonto koox qayb ka noqota kooxaha garoomada khaaska ah iskale weeraryahanka reer Spain ee Tottenham Fernando Llorente oo 33 jir ah ayaa bartilmaameed u ah Barcelona Mundo Deportivo ayaana daabacaysa sheekada ah in wiilkan cajiibka ah uu hadda noqonayo mid ku biiri kara kooxda Barcelona waa haddii 33 jirkan lacagaha lagu burburin karo heshiiskiisa banaanka la soo dhigo iyadoo lacag badan aysan ahayn haddana waxa xitaa beeca horta uu ku aadi kara Barcelona marka uu dhameysto qandaraaskiisa macalinka Manchester City Pep Guardiola ayaa u sheegay saxaafadda in kooxdiisu aysan bixin doonin lacagaha 100 milyan ee la wariyay in ay ku doonayaan inay ku soo qaataan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Wolves Robin Navas oo 22 jir ah Mirror waxay daabacaysaa in kooxda City ay u baahan tahay wiilkan cajiibka ah laakiin 100 milyan ee sheeko u dhow inaysan bixin doonin kooxda ay milkiilayaasha reer Carabeed iska leeyihiin weeraryahanka reer France ee ka tirsan kooxda Watford sidoo kalena marmarka qaar bartamaha garoonka aad uga dagaalamay Abdullahi Dekoro oo 26 jir ah ayaa u sheegay France TV inuu ka tagayo kooxda lagu neenaaso The Hornets waxaana warinaysa majalada caanka ah Canal Football Club iyadoo wararka hadda ka imaanaya Francisco ay daabacayaan in wiilkan uu u baahan yahay inuu isaga baxo kooxda kubadda cagta ee Watford dhanka kale xidiga garabka ciyaara West Ham United Mikel Antonio ayaa sheegay in xidiga ay isku kooxda yihiin ee weerarka ciyaara una dhashay wadanka Austria ee Mark Arnautovic oo 29 jir ah uu doonayo inuu u dhaqaaqo horyaalka Shiinaha si halkaas uu kaga soo xareeyo lacag badan xidig garab weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool ee Ryan Pavel ama kii hore Liverpool ka tirsanaa jiray oo 32 jir hadda ay da'diisu tahay qarka u saaran in heshiis amaha uu ugu biiro kooxda Fulham laacib reer Netherland oo bariyahanba lagu arkay wadanka Holland xidigaha markaasi matalaya wadanka Oranjiga ayaa iminka u ciyaara naadiga Besiktas The Telegraph ayaana daabacday sheekada umuurtaasi la xiriirta Liverpool ayaa baadigood ugu jirta sidoo kale in xidig reer Scotland ee garabka ciyaara una ciyaara kooxda Celtic ee James Forrest inay soo qaadato waana da'diisu mid hadda ay tahay 27 sano Scottish Sun ayaana daabacday intaas aan ku ekeen doonaa warbixinada suuqa kaliibsiga waxaan fiirin doonaa kulamada laga ciyaari doono qaradweynta